xaafadda 1 Agost ee magaalada Garowe waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka isdhexgalka dhalinyarada kaasoo socday bishii Ramadaan. Dhalinyarada xaafadda Agosto oo koobkan ka qayb galay ayaa isugu jiray heerarka Serie B iyo Serie C. Maxamed Axmed Saciid oo kamid ahaa guddigii maamulayay kooxda isdhexgalka dhalinyarada xaafadda Agosto ayaa faahfaahin ka bixiyay siduu koobka ku bilowday iyo siduu ku soo dhamaaday. inoo soo gabagabeeyay koobka xaafadda ka socday dhalinyarta xaafadda 1 Agosto gaar ahaan Toroboro. waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar labaad iyo mar saddexaad iyo cid walba oo koobkaas ka shaqeysay. koobkan hadaa in ka siiyo hordhac waxa la furay soonqaadkii bilowgiisii asagoo dhalinyarta iskugu jidhay heer Serie B iyo heer Serie C taasoo loogu dhex talagalay dhalinyarta inay ku madadaalaysato iskuna bartaan iskuna jeclaadaan dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kale magaalada amni darrada ka socdana yaani lagu yareeyo lagu taxadaro. koobka sidiisaba waxa awalba inoo bilaabay oo fikradiisa keenay dhalinyarta iyadoo yaani ay ka timaaday gudoomiyaha xaafadda 1 Agosto Cabdi. waxaan salaamayaa dhalinyarta dhammaan xaggan isku timaaday heer Serie A iyo dhalinyarta kuwa waaweyn oo guddiga sida dhalinyarta xaggan wada joogto Mahdi Yuusuf Feeriyo Maxamed Ilka Casi Cabdiqani Jamaal Ciise Xuseen iyo dhammaan dhalinyarta ka soo qayb gashay inta daawanaysay. koobkan wuxuu noogu soo gabagaboobay alxamdulillah si nabad ah iyadoo cidna aysan wax buuqaysan ka dhalin iyadoo dhalinyarta istixgelinaysay loona doortay yaani sidii sharciigu ahaa loona doortay yaani dadkii ugu muhiimsanaa albiitara fiican oo koobka go'aamiyay yaani wax cadaalad darro aysan ka imaan cidna aysan wax filanay. gudoomiyaha xaafadda 1 Agost Cabdinaasir Cabdi Shaqo tagay ayaa dhalinyarada xaafadda 1 Agost uga mahad celiyay sida u soo maamuleen intii uu koobku socday. in xaafadda 1 Agost dhalinyarada qayb kamid ah aan u soo xirino koob runtii waxaan aad uga mahad celinayaa dhalinyarada isfahamka iyo ixtiraamka iyo kalsoonida dhaxtal dhalinyarada runtiina waxaad muujiseen galabtay door aqooneed waxaa muujiseen haliyeynimo runtii dhaxalgal ah in idinkoo dhalinyaro ah aad inta ay soo maamusheen ilaa iyo bilowga Ramadaanka ilaa maanta aynu gabagaba joogno inaad idinku maamulayseen koobkaas inuu si habsami u socdana idinku aad mas'uul ka ahaydeen runtii waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa inta iyo in ka badanna inaad isdhexgal muujisaan runtii aniga oo gudoomiyaha xaafadda 1 Agost waxaan ballan qaadayaa insha Allah inaynu inta iskaga sii dhawaano insha Allah inta ka sii wada shaqeyno koobab kale oo isdhexgal aynu furano inta aan muujisana xurmada in ka badan inaan muujisaan baa la rabaa kiina qaada iyo kiina laga badiyaaba wixii dhan waxa tiin hal koox hal yaani xaafad hal family baa tiin marka insha Allah inta ina iskaga sii dhawaataan baa rajaynayaa raggi maamulayay oo guddiga ahaana dhamaantood oo mahad celinaya runtii si qurux badan heer sare leh u maamuleen. gabagabadii waxaa bilado la gudoonsiiyay qofkii dhaliyay goolashii ugu badnaa difaacii ugu wanaagsanaa iyo kaftankii ugu fiicnaa Cabdixamiid Salaad STN Garowe.